مدام مدحويني wax maanta farxad noo ah iyo sharaf inaad nala joogto munaasabadda dhagax dhigga madaarka Boorame oo qorshihiisa aan ku jirnay muddadii aan gacanta ku haynay diyaarinta qorshaha wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada. Madaam madaxweyne anagoo fulinayna himiladaadii ku saabsaneyd dhamaystirka iyo dhismaha madaarka Boorame waxaanu diyaarinay qorshaha madaarka Boorame oo ka koobnaan doona dhabada diyaaradaha runway, qaybta diyaaradu ku kala wareegaan taxiway, qaybta diyaaradaha la dhigo apron, towerka laga haga diyaaradaha, qaybta fire fightingka, terminalka passengers ku maraan iyo xafiisyada madaarka. Qorshahaasi si uu inoogu hirgalo madaam madaxweyne maayarka iyo barasaabka waxaanu ka wada hadalnay in la helo dhulkii uu u baahnaa madaarku iyadoo la raacayo international standardska caalamiga ee madaarada oo dhigaya inuu madaarku yeesho ugu yaraan 2.3 kilometer dhererka ah iyo ballaca oo la doonayo 500 mitir in ay maxaa ballacu noqdo. Sidaa awgeed madaam madaxweyne si madaarku inoogu dhismo maayarka iyo barasaabka waan ka wada hadalnay waxaa laga maarmaan ah in reer Awdal iyo Boorame ay diyaariyaan dhulkii madaarku u baahnaa oo dhererkiisu yahay 2.3 kilometer ballacuna yahay 500 mitir. madaam madaxweyne madaarkan qorshihiisa sidaan ugu diyaarinay haddii aynu bilowno oo uu hirgalo oo sida qorshu yahay in markuu dhamaado waxaynu heli doonaa passengerska isticmaalaya waqtiyada samarka iyo macaamiil kale oo aynu ugu talagalnay madaarada sidoo kale gobolada ugu yaala inaynu uga faa'iideysano dhinaca emergency-ga oo hay'adaha UN oo kale aynu ugu talagali doono in ay u noqoto meel ay ka qaadaan waxyaabaha emergency-ga ee gobolada marka loo baxayo. sidoo kale waxaa iman doona diyaaradaha passengerska iyo kuwa cargo-ga ee u socda gobolkan iyo gobolada kale Ethiopia ka mid ah deriskeena la. madaam madaxweyne waan ku faraxsanahay inaad munaasabaddan la joogto.